والسلام يا دمانتين وظهر وزيركم شرف بين إيتهاي إيران كسر يقول مناسبة دافور كتلال كحولها شغل هيسان والشغل ونكسوي والشغل نوبلا والشغل وحصوصات كدلك دقاليه الدلك لفدبرتي دقالها وحولها الناء حنانين تودا داوين تودا طلال تودا وعيلتها وحكم مهم سن oo la qaban lahaa ma jirto waa ku baadaya wasiirku uu ka hadlay fartiin buu idin faray in dadka aad u tagaysaan waxa ka muhiimsan xoolaha la durayo iyo xoolo neefka la talaalayo daaweyntiisa dialogue iyo discussion-ka iyo hadalka aad la yeelanaysaan xoolo dhaqatada muhiim ah runtii dalkeenna waa la socotaan dhib badan baa ka jirta dhibta ugu weynna waxa weeye waa abaaro cyclical ah oo hadday sanad roob la helo sanadka dambe aan la helaynin waxaa aad isu bedelay cimiladii dalka waxaa aad isu bedelay environmentkii waxaa lagu ciyaaray oo la burburiyay ecology-ga dhammaan ee dalka ayaa si xun loo isticmaalay walow aad moodo dhanka meelaha qaarkood inaan kala difanahay haddana way muuqataa dhibta environmentka oo ay keenayso abaarta recurrent-ka oo soo laalaabanayso oo la socotaan oo sanadkii la soo dhaafay boqolkiiba 70 xoolaheenni waa ay dhammaadeen xal bay inuu ka baahantaa laftigeedu ma muuqato dadaal caalami ah ama mid dalka ah ee lagu badbaadinayo bii'ada aad u muuqata hadda marka waxaan u baahanahay situationka siduu yahay inaan la noolaano oo aan isku dayno ilaa environment ma soo celin karno dhuxushii la gubay geedihii la jaray gaaliskii dhibaatooyinka subsamay in environmentka dib loo soo celiyo oo suu ahaan jir lagu soo celiyo waqti bay qaadanaysaa iyo juhdi tiro badan iyo dhaqaale tiro badan oo hadda aanan haynin waxaan u baahnay marka in dadkani sida ula noolaan lahaayeen environmentkaasi in aad wax badan haddaad tihiin dhakhaatiirta xanaanada xoolaha aad maaragtay aad wax ka tartaan waanaad u sheegi kartaa runtii we admire dadka oo dhakhaatiirta xoolaha daweeyahay waxaan isleeyahay waa dad naga fiican oo naga aqoon badan waxaa weeye waxaan hadlaynin oo halkaan laga haya aan lahayn haddaad daaweynaysaa ood cudurkooda garanaysaan ya dabcan symptoms baa jira xoolaha aad ku garataan ya nin xanaanada xoolaha daaweyn jira dhakhtar tagaa la yidhi marka kii dhakhtarka ahaa oo wax daaweynaya baa garan waaya cudurkiisi marka wuxuu yidhi war aniga oo kula hadlaaya miyaad garan weyda waxay hayaan kuwaan hadlin baan maalba daaweynaya marka shaqada haysaa waa shaqo runtii aad iyo aad u muhiim u ah marka waxaan u baahannahay labo mid waa daaweyntii iyo wax hadda jira saan u haysan lahayn u xanaanayn lahayn uga hortagi lahayn inay naga dhammaadaan sababto waxaa weeye lafdhabarta dhaqaalaha Soomaaliya waa la socotaan waa livestock weeye ma aanan gaarin hadda khayraadkii kale naturalka ahaa soo ahayn uga faa'iidaysano wali meeshii baan taaganahay wali horumar kama aanan samayn badda kalluun kama aanan samayn beer kama aanan samayn macdan kama aanan samayn shidaal kama aanan samayn waxaan soo dhaqaalaha oo dalku leeyahay wali waxa aanu ku dhisanahay waa neefka la dhoofinayo dhaqaalaha Puntland wuxuu ku dhisan yahay neefkaas xoolaha aan u dhoofinayna carabta way marka inta aanu heerka kale uga gudbayno waxaan u baahannahay kan inaanu juhdi badan gelino marka dardaaran waa qabtaan aqoonti waa haysaan waa idin bogaadinayaa waxaan idin leeyahay nabad ku taga nabad ku soo laabta waxaana hadda aan sheegayaa in talaalkii
oo daahfuran yahay